تاريخ دوا مدن وجرى مرقاتلي وجرى مرقاتلي تاريخ دوا مدن وجرى مرقاتلي وجرى مرقاتلي waxaan fadhinaa haddaan dhinacan kala soo qabta aadan cabdi xuseen oo ah mas-uul ka tirsan golaha dhexe haweenka muuse biixaadi oo ahaa hogaamiyaashii oo muddada dagaalka hubaysan ugu jiray cali maxamede oo ah hogaamiyaashii tanaansada kamid ah iyo cabdillaahi maxamed daahir iyo rag kale oo iyaguna halkan jooga marka waxaa jecla banaan waraysi la yeelano aadan cabdi xuseen iyo muuse biixi cabdi cabdillaahi maxamed daahir iyo bal waraysiga la yeelan doono muuse iyo aadan maatin xasan waxaa jirtaa waqtigan jamhuuriyadda somaliland oo mas-uuliyaddeeda ama ay xukunka gacanta ku hayaan ururka dhaqdhaqaaqa waddanka soomaaliyeed ee sana muddo 2 sannadood oo ku meel gaar ah in uu jiro khilaaf siyaasadeed oo weliba dhaliyey markan dambe ama xiliyadan dambe xaaladan oo nabadgeliyo iyadoo jamhuuriyaddu ku caanbaxday ama ammaan badan caalamka kaga mutaysatay 10 bilood oo hore oo nabadgelye ahaa xilligan waxaa jirta golaha dowladda ee jamhuuriyadda somaliland in ay jiraan rag waaweyn oo ka mid ahaa hogaamiyaashii ciidamada xoreynta ururka dhaqdhaqaaqa waddanka soomaaliyeed ee sanin ku canka ahaa siyaasiyiin iyo dad kale oo iska caadiyada oo kasoo horjeeda ama loogan karo waxay xilligan iskhilaafsan yihiin golaha dowladda iyo hogaanka dalka gacanta ku haya labada markaasi waxaa imika noo suuragala ah sida xasan idin sheegay inaanu wareysano muuse biixi cabdi iyo aadan cabdi muuse biixi waa sarkaal ka mid ah saraakiishii halganka hubaysan soo hogaaminaysay waxa kale oo ka weyn oo waqtigan yahay gudoomiyihii samweynihii lixaad ee ururka dhaqdhaqaaqa waddanka soomaaliyeed ee sanam oo lagu qabtay almi berigaa waa la qarin jiro magacaasa loo bixiyey bilugubadle lagu qabtay ee lagu doortay hogaanka dalka imka gacanta ku haya ama aan idhaahdo gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa waddanka soomaaliyeed ee sanam oo iminkana madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland cabdiraxmaan axmed cali shirkaasi ama shirweynahaasi muuse biixi xukuumadda hogaamintii shirkaasi ammaan badan oo ay usoo jeediyeen ergeydii kasoo qayb gashay ka fadhigan intii ka dambeysay muuse biixi waxaa carabka lagu hayaa inuu haddana yahay hogaamiye dhinaca mucaaradada isla guddoomiyihii lagu doortay shirkaa uu guddoomiyaha ka ahaa iyo golihiisa dowladda dabadeetna su-aasha ugu horeysa aan weydiinaya waxay tahay bal waxyaabaha ugu waaweyn ee kalifaya in uu muuse biixi noqdo nin kasoo horjeeda hogaanka waqtigan gacanta ku haya dalka bismillahi raxmaan raxiim horta waxay muddadii dunya waa horay in aynu helo dimuqraadiyad aynu isku toosinaan dhalin la isku tilmaamo haddii marka dhalin la isku tilmaamo ay noqoto kasoo horjeed oo la qaadan kari waayana waa yada maamulkan imika dalka ayaa xukuumadda maamulka dhaliilo badan baa haya markan soo koro waxaan kusoo koraya in aanay doorkii inaga dhexeeya asanan ay ka xadgudbeen barnaamijkii asanan 2 sano kala gurgaayada dalka maamusha ay ahaydna ay isagana ka gudbay labada qodob haddii ay ku socon weyday waxaan leenahay labada qodob lagu soo noqdo oo lagu soo si caqliyad oo degana arrintaa waa lagu soo noqdo kasoo horjeeda jamciyaad u yaraado waa doonaysa iyo dagaalaysa iyo ma markaa waxaan ku soo kooraya xukuumadda waxaan ku dhalinayaa in aan historikii iyo barnaamijkii midna ku shaqeynay raadishan waqti loo baharkay iyo gooyin su-aasha labaad ee muuse aan weydiinayaa waxa ay tahay waqtigan dalku wuxuu ku sugan yahay xaalad aan qurux badnayn aan wanaagsanayn gaar ahaan bilaha u dambeeyey qaybo dalka ka mid ah ayaa xaaladda nabadgelyo ay xun tahay
وحوار عنين حالة المسؤولية كواب سراكيل وأدونا الجمود كل مركا idinkuna marar badan oo xaafada ku hadasheen jaraa'idka iyo idaacadda waxaa carab ku dhuftaan in ay tahay xukuumadda idinkuna ugu aaminaysa xaaladda darteed seed u aragtaa maxaa xal idinku dhinacinaa waata koowaad annaga maxaan ugu aaminaya wax yar dadka uma haynin nin halkaas ka fadhiya xaafad ee loo saaraya hadday dadka ka xumaadeen wax ka xumaadeen mas-uuliyadda waxaa ninkii ka kaxeeyey labada kale haddaad leedahay dee ururmaasate oo wax kaa abdoontarna bacday oo sheeko kusug halkan geedka wada fadhiyaaye waxaa loo caantoon jiro waa dugmada markaa usoo noqon dalka dhibaatooyin baa ka taagan dagaal sameeya ka taagan dagaalkaa waxaan anugu aaminsanahay inay xukuumaddu gaar ahaan madaxweynuhu inuu dagaalkaa berbere isagu bilaabay weliba qorno ku bilaabay uu reerkiisoo dagaal geliyey uu reerkaa cusay waa maragooda naqanima haddii la waa doonayno waxa weeye ka noqdo berbere deegaanka ahaa looga tago sabigii dudayburada berbere joogay ciidamada soomaali etana oo ka koobnaa guutada 6 ee iyo b 15 iyo guutada 11 intii waa qosay 8 iyo 4 qosay 8 iyo 2 qosay oo ka duwan ka shaqo saddexaad wax ka daba marka waa arkayna baadina soo hor haddii xad loo furtaa inta tahay sabida dawladda baa loo celiyay inta ka hayshiyaaska taa qayb ma faqaada jaayka kale على waxay tahay muddo 6 sanadood iyo dheeraad ah oo ururka gudoomiye ka soo ahaa Axmed Maxamed Xanuud Siraayi waxa ahaydeen ragii ku kacsanaa markii dambena ku guuleystay inuu kursiga ka digo Siraayi waxa ku dhaliili jirtay waxyaabo badan oo aan qofka muwaadinka jeclaysan karin ilaa hadda waxa ama uu dadkana dhinaca mucaaradada nin hor taagan ayaa ku wajahaya inuu isku mucaarada هذا أنا الذي يعيو بدل دور روحه وليش أروح هنا ولوس ليش فوق كل واحد أنت ما خلاص أقول هيك صار أدور السكافية ما قال لي أنا مسيو ضنين كاي لكن هو أبي ترى أول يوم كويس إنه واحد ما تصور إلا ذاك مكان بناء وصول معرض يقول التاريخ إحنا مسيو ضنين كاي اللي جايبه خلاص كمان أنا حضنا يساعي يقول أنتي في صورة كذا ما واحد على ضد الله كذا. لا حول ولا قوة. يعني يبغى يتحضر ما كان سوريا. فكر كذا كذا. فرد ما لغنا. إيه هذا ويا. إيه مثل عدلاء كفار ما تخبى حلا حتى يبغى مريا. أو أد هني سوادي أنا أو أنا حقوق بشيء. يقول لا إله إلا 10 ثاني. هل كذا لا أقول بس هو وكان طل أبيو كون يعرفها ما عارفها أما أنا بعد كسر كذا ما لي إمام يتلوضع حد حم وارد قد أقول مع هذا ما شخصين ما كانوا هم وأنت واحد صوت شكل يشوفوا معنا شخصين صورة حاجة كذا كمان أنت هي يا أبي تجاه اسمه كذا ولا عندي سود وشاد وسكان حقوق تزيك يا نلعب أو كل شيء يصير بديان بين يقول لنا شغل ما هو ما هو عاد عيسى هذا كم تشيل السلام أما كوكا الأرض أما كوكا الأرض أما كوكا أول السلام ما هو هذه ترى شيء هذول كم عروض على كذا على شو ما كان أقول هذا جيد مش كذا هي روش لا أما كيكو هذا ما كوكا تويانو بس دي تقوى هذا نقول مسؤولي ما إيه يلك عنده مشكلة سؤال شو بدهم بيسموه سأقولين يا أخوي كوزم على العسلية أدونا الموت كذا يا فكر واحد سوري بين سيرفيس وبيسويها واحد سوري بين سيرايو كتيجي عبد القادر بصراحة ما مش يسموه رأي يمين عبد الرحمن طول وسوري بين waxaa qaali marka waxa ugu weynay ku dhaliilaya jildigood muxuu yahay mase loolan karaa mala adkasta doonteeda horta
أنا من زمان أنا أول ما تكتشف فيك عنكم وفوق أنا أقول شيخ يوسف سأل ما تعرف هذا من زمان واحد طريق زوجتي دي كان يعرف إلهي عبد الغالب وصارت خيارها كنت على وجه البريارة يقول بيرا وكي كنت نوضر هذا نيجا الآن نروح تلقى أحد تلاقي أربعة يريدني تكلم صوره وارد رسول عبد الرحمن يد ليش داخل أنا أقول لك دستوري يوكا برنامج سياسي أنا ما صوري حتى يوقف مع عضو وتقدر تصل مختار رسالة يعطي كما إمكانيات الأول معي يرضون هو يسوي هو يقول لكن واحد صوري يا فجأة كده لربع دستوري أنت قرارات أساس بشر برنامج سياسي أنت جنبه له حتى أنت أسرع قرارات أو قضية يعني وين على نفس اللي دايره أو تسكتين كلودي لكن واحد كده يوقف في شيء فجأة يسمونه هنا ليه اثنين القرى كل حلو ومن هذا حقوق ذلك الإنسان فيأوي المرأة إذا وش الاستمرار بس كل حلو وما دراسة مريضة يا كم مسؤول أنا بيحب جاب بدل وقول لي أنا تعالى عبد الله على عطش يا أنا كاتين